madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo maalmihii ugu dambeeyay safar ku galaafinayay qaar ka mid ah gobolada bariga Soomaaliland gaar ahaan Sool iyo Saraar ayaa maanta gelinkii dambe soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyadoo ay ka hortageen dadweyne aad u tiro badan iyo waliba maamulka iyo mas'uuliyiinta degmada Burco sidoo kale waxaa si weyn uga dhex muuqanaya soo dhaweynta madaxweynaha ururada arrimaha bulshada iyo waliba dugsiyada hoose dhexe iyo waliba sare ee magaalada Burco madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxaa si weyn loogu soo wareejiyay wadooyinka waaweyn ee faras magaalaha ee magaalada Burco madaxweynuhu intaasi kadibna waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland salaantaasi kadibna madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada ee magaalada Burco waxaana halkaasi warfidiyeenka faahfaahin ka siiyay safarka madaxweynaha iyo ujeedooyinkii uu daarnaa afayeenkii hore madaxtooyada Soomaaliland haatanna la taliyaha arrimaha sharciga ee madaxweynaha mudane Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Faahiye Shamax oo ka warbixiyay safarka madaxweynaha sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Aadan Qabo oo isaguna halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku tagay dhinaca bariga ee dalka socdaalkaasi runtii wuxuu ahaa mid taariikhi ah oo aad iyo aad muhiim u ah madaxweynuhu sida aad la socotaan ee warbaahinta laftiinu aad gaarsiiseen ummadda iyo dalka iyo dibadda aad gaarsiiseen madaxweynuhu wuxuu xalay ku sugnaa magaalada Laascaanood magaalada madaxda gobolka Sool ayuu ku sugnaa maanta oo dhan waxa uu dhex meerayay madaxweynuhu oo uu kormeerayay hay'adaha dawladda ee ku sugan magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaanood halkaasoo mashaariic badan oo qaarna muxuu ahaa furayay oo xariga ka jirayay oo wadooyin leh muxuu ahaa dhismayaal qaarna uu kormeerayay qaarna muxuu ahaa uu binaynayay oo uu dhagaxii ugu horreeyay uu dhigayay marka madaxweynuhu shaqo culus ayuu ka soo qabtay magaalada madaxda Laascaanood waxaad moodaa magaalada madaxda gobolkaasi Sool ee Laascaanood in ay dawladda mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay si gaar ah ugu dhalatay gobolka Sool ayaad moodaysay marka la eego baaxadda mashaariicda ka hirgashay ee ku kacday malaayiinka dollar waxa lagu qiyaasay mashaariicda ilaa imka fushay inay tahay ilaa 7 milyan oo dollar ay tahay ayaa lagu qiyaasay oo ay ugu xoog weeyeen mashruuca dhinaca caafimaadka Axmed Maxamuud Siilaanyo wax fara badan ayuu ku suntayay taariikhda Soomaaliland waxay ka mid noqonaysaa guusha gobolada bari taariikhii hore u lahaa ama darajo ha noqoto ama furistii ururada siyaasiga ha noqoto ama ha noqoto wax fara badan uu koobsaday ama dhismaha iyo dayactirka dalka hadday tahay wadooyin oo bilaabay isaga la kowsaday hadday tahay dhismayaal qurux badan oo wasaaradaha uu ka sameeyay hadday tahay dhinac kasta markaad ka eegto waxay tanna waliba ku sii khatimaya xantii ahayd gobolada bari lama hayo oo maanta la soo gabagabeeyay waa madaxweynihii ugu horeeyay taariikhda Soomaaliba ee Laascaanood seexda waa u taariikh lama hayo madaxweynaashii ka horeeyay Soomaaliland meeyeen madaxweynaashii Soomaaliyana hore umay samayn ama may seexan madaxweynaha Soomaaliland ayaa la filayaa tan iyo maalinta biriya inuu ku sugnaan doono magaalada Burco isla markaasina uu dhagax dhigi doono mashaariic cusub kuwa kalena waxa dhiga ka jiri doono Ali Cabdikariin Xaaji شبكة عالمية هيران نيوز مقالة برعو